waxaa jiray isbitaal duug ah oo magaalada ku yaalay dadkuna aad uga baqayeen daaqadaha qaar waa ay jabeen derbiyada qaarna waxay ahaayeen kuwa madow oo dildilaac leh laakiin waxa ugu cabsida badan wuxuu ahaa qolka lambarkiisu yahay 13 maxay tahay waxa cabsida badan ee laga sheegayo qolkaasi marunba qolkaasi in dad badani lagu waayay muuqaalkeeni ayaan ku ogaan doonaa shaqaalaha isbitaalka waxay sheegi jireen qof kasta oo qolkaas la dhigo in uusan soo toosin subaxda qaar waxay ku dhiman jireen si lama filaan ah qaarna si qarsoodi ah ayaa loo waayi jiray xitaa hore waxaa u jiray nin bukaan ah oo qolkaasi la seexiyey weliba isagoo ka jaban lugta balse nasiib daro ninkaasi subaxdii dadka meesha joogeen waxay sheegeen inuusan soo toosin wuxuuna ku qaylinayay habeenkii oo dhan isii daaya maalin maalmaha ka mid ah nin dhalinyaro ah oo isbitaalka tababar u joogay ayaa maqlay sheekadan wuxuuna ahaa qof si fudud aan waxba uga cabsan wuxuuna yidhi aniga ayaa runta soo ogaanaya hal habeen ayaana seexanaya qolkaasi balse mid ka mid ah saaxiibkiisii ayaa ku yidhi kama fikiraysid miyaa middaasi 2 jeer xitaa ayuu ugu celiyey balse wiilkii middaasi waa uu ku adkaystay shaqaalihii oo dhan waa ay ka naxeen laakiin isagu ma uusan u joojin habeenkii markay ahayd saacaddu 12 ayuu galay qolkaasi markuu sariirta jiifsaday korontada ayaa si lama filaan ah ku tagtay qolka oo gebi ahaanba madow noqday kadib wiilkii ayaa wuxuu maqlay neef cabsi leh oo ka imaanaysa qolka geeska wuxuu qaatay teleefonkiisii si uu iftiinka ugu shido laakiin bateriga ayaa gebi ahaanba dhammaaday qolka dhexdiisa ayuu ku arkay hadh ama hoos mugdi ah oo taagan iyo indho gaduudan oo isaga soo fiirinaya hooskii ayaa si tartiib ah ugu soo dhowaaday wiilkii cod qiiqleenna wuxuu ku yidhi waxaan ku sugayay muddo aad u dheer qofkii hore oo qolkan soo gelayay wuu iga baxsaday adigana igama baxsan doontid wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa wuxuu isku dayey inuu qayliyo laakiin codna ma uusan ka soo bixin marka la gaaray subaxdii shaqaalihii isbitaalka waxay heleen sariirtii oo maran oo aan cidna ku jiifin ninkii tababarka ku jirayna laguma arag meesha qolkaasna weli lama furin ilaa maanta dad badan oo isbitaalka ka shaqeeya waxay ku dhaartaan inay habeenkii ka maqlaan meeshaasi qaylo inkastoo qofna uusan ku jirin qolkaasi oo uu qufulan yahay haddaba adiga ma ku dhiiran lahayd inaad hal habeen oo keliya seexato qolkaasi 13aad mase waxaad ka baqaysaa inaad noqoto qofka xiga ee la waayayo